in a simple sense anigu Soomaalinimo kamaan tagin baan ku dhig كمان خلينتها تواad su-aashaada dib u dhageysa anu Soomaalinimo kamaan tagin islaamnimo kamaan tagin waxaan ka tagay siyaasadda Soomaalidu ay ku wada dhaqmaysay ee jamhuuriyadda Soomaalida wixii la oran jiray sida ay ahayd xukumi jirtay baan ka tagay جمهورية الصومالية وحنا أورنجل محاولة ما يصير جمهورية الصومالية هن عندهم قوة قنصلة يقولي أنا جمهورية الصومال لان بنا قنصلة right so the girls marka أنا تاسن أمين سنة هي جوابتي دون واتهوي وأعرف في عنوية يصير واحد استعمال سقف صومالي أنا جوا يقبل سبقول في بخل مركز هذه جمهورية الصومالية الآن definition كأما قيحتان كالجمهورية وحويها وضن حدود له مدح بنان عدوك اعترافسي هي وأصوه قولي وتاجن سيد الصومالي أي تاي يوغندا أي تاي تنزانيا أي تاي كينيا أي تاي وضمن العالم قدرن التاريخ ولالك وأدو آدي أدرى اللي سؤالها يقولوا very important questions so I have enormous respect for this thank you and واحد جري وي وحان جرين ما هو واحد جري وي صوماليا أو أنجرين تاني مكاد كهالله مقدسة يو كونفور أو أنجرين بي Somaliland جرتي as a country هذا عندك سؤال هذا بيس ده هذا بيس سؤال ده جميل more than 30 countries بقى قنصنا Somaliland إنه وطن عصبه حرية قاتلة يتاعي سؤال ده جميل حدود بين الحيط سؤال ده جميل عالم كالصومالي ده ما أنت حمرية لا بلوجه حدته كل شاب بدأ يسنتهاينا شن جيس بولي شن تاجيس شن ودن ما قبله ودن كلا كترسن شن ودن أيه هاي شن ودن سومالي لان مد بكم يدهاي سومالي لان مد بكم يدهاي صدق ديك الله كويس كتجي سو ده قرمش سومالي لاند شقق جونيه كما صارنا إن الله يسكو هاي سومالي شقق جونيه كما صارنا تاسوا واحد لو سميه حوي سو ده قرمش مالنت لأنه ويديه وان هذا الباند كجيس أنت investment لجريني وان جريني أدانو هاي سومالي لاند عالم كاسا كم مرخاتين إنه ودن جونية هين عالم كاسا كم مرخاتين معان كورا هاي إن الدنيا ده أقون سنة ودن جونية وحاجات عالم كان بلوجا مركب قوي لكن وكونفورت لكن عالم نوع عيب كونفورت هاي وعالم كوي قال ما دام لا بدنا كردون هاي on your account حزبية SYL عالم بوسمي حزبية SYL حزبية كلا أي جري سوماليلاند يد معان كورا هاي إيطاليان سومالي حزبية كلا أي جري حسب كمان لا عالم نوع عيب هاي عالم كوي قنصية ده جواب تمياد يصير وقت قدام واحد رال نوع بروفيسوري waxaan rabaa inaan ogaado calan baan keenay baan leedahay buluug waa shan xidigood buu leeyahay haddii adigu aad dawlad ahayd hal calan leh shan dawladood kala duwan lahaa dawladaha kala calamadoodii calan noocee bay koonfurtu lahayd xisbi ma sheegayo xisbiyo badan oo calamo la jira waqooyiga laftiisa xisbiyo kala duwan ka jira waatan ku soo wada calamay kala yeelan karaan soo dawladda Soomaaliya calankii lagu yaqaanay ee koonfurta madax xarunta u ahayd calanku wuxuu u yaqaanay markaa waxaan ku yidhi adayada si wanaagsan ii dhigay kaam say ku dhigaysan ballan Somaliland saddex waxa jira xisbiyo waaweyn SNL NUF USP xisbiyo kala gooniyaha community kala gooniyaha ku jiraan anigu family-gaygu waxaan ahay NUF USP ma aan ahayn dadka waxyaabo dadku ay iska samaystaan soo dadka Soomaaliyeed wada USP ma aan ahayn NUF baan ahay laakiin caalamina ay dawlad miina ahayn walaal hadda dhageyso soo degarmays dawladnimo ay saddexduba ka shaqeynayeen horta in Ingiriiska dawlad laga qaato xornimada kama shaqeynayeen in Muqdisho la xoreeyo taasi shaqo kale dadkii kale u taale shaqadii halka xisbiyadii kale in wadankan la xoreeyo waxay taasi ku tusaysaa inay ka gooniyahay Somaliland Soomaaliya ka gooniyahay xisbiga USP iyo xisbiga SNL iyo xisbiga NUF shaqadoodu waxay ahayd Ingiriiskii in laga xoroobo deetana wixii marka taala dhameeyo laga wada hadlo deetana sidii unionkii ummadii Soomaaliyeed ma aha Soomaaliya iyo Somaliland shantii la isku keenay ayay shaqadu ahayd to stage ka caynkaas ah sadaqay stage kale way ku dhacdo Ingiriiskii waa laga tagay timaa dawaakii ka nasiibka nasaar sidii ba gobonimo lagu qaatay xisbiga SYL ku marka iyagu waxay ahaayeen xisbiga qura ee ah national level ka sare ah ee Soomaaliya oo dhan gaarsiiyo Ethiopia xitaa uu ka furnaa xisbiga dir dhab xafiis ku lahaa xisbiga SYL ku Cabdirasaaq Xaaji Xuseen iyo Urdoox ya oo galbeedka ka yimid iyo halka ka furood maqaaxi Urdoox baa laga furay maxaan ku raay xafiis SYL ka looga furay marka sentiment ka sare
soomaaliya oo dhan ha la isku keeno etoobiya jabuuti ha la isku keeno calanka markaa SYS ay wadaya calanka buluga xidigtu dhexda ay kaga taalana wuxuu mathilayay markaa laba ra'yi buu mathilayay oo la isku keenay ra'yiga in la garto inay jiraan wadamo kala gooniya oo Soomaaliya oo kala gooniya waa mid particular ah iyo ra'yiga shantaasi kala goonida haddana waa Soomaaliya in la isku keeno ay mid noqdaan calanku labadaaba spiritka labadaasi way ku jirtaa hadii kale wuxuu noqon lahaa calan buluga ah oo aan xidigtu ku dhex jirin ayuu noqon lahaa aniga sidaas ay ila egtahay